waxaa jirto marka adeerkan wax dumaalayo adeer wanaagsan ma ahan wuxuu kufsaday gabar oo adeer u yahay gabadhii oo adeerka u yahay oo la dhalatay wiilka. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkaad naga fiirinaysid naga daawanaysid muuqaalkeena aad ka arkaysid waa Ugaas Saabir, aniguna waa Ugaaskeenii oo mar kale dib usoo laabtay muuqaal cusub inay hayo. muuqaalka caawa aynay hayo aan kugu talagalay waxay tahay qisadii xanuunka badneed ee wiilkii labadii latay walaalihiis gacantiisa ku dilay, asigana ay booliskii Mareykanka ay dileen. sababaha oo waxaynay hayaa wiilka oo u dilay walaalihiis iyo wixii ka dambeeyay inay gacantiisa sababsadaan. wiilka labadii wiil dilin doonana wuxuu sababsaday gacantii booliska. waxaynay hayaa qisada meesha ay ka bilaabatay iyo sababaha uu walaalihiis ku dilay. fadlan haddaad nagu cusub tahay soo dhawaaw, subscribe-ta taabo, gambaleelka furo si aad u noqoto daawada ugu horeeya ee muuqaalkeena daawado. like-ta nagu dhiirigeli si aan u noqdo muuqaalkeena muuqaal meel kasta laga arko. commentigaaga waa noo muhiim. qisada xanuunkeeda meesha ay ka bilaabatay iyo meesha ay ku dhamaataba waa meesha aad arkayseen oo xale ah. waxay ahaayeen reer dhan oo dhammaystiran oo ka kooban hooyo, aabe, caruur afara ayay ahaayeen. waxaa ka soo hartay hal gabar. intii kale ayaga ayay gacantooda isku laabteen. haddana ayaga ayaa issababsaday. odayga wuxuu dilay hooyadii, asiga wuxuu sababsaday lama yaqaano. gaalkacyo ku dambeeyey markii ugu dambeeyey, laakiin uu dhintaa la yiri. labada wiil walaalaha waxaa dilay wiilka walaalkooda, asagina booliskiyaa dilay. gabadhii keliya ayaa hartay. sababtaas maxay tahay marka? sababtaan rabaa inaan ka dabageeyo. soo dhawaada. horta qisada ayadoo diyaarsan waatan warqad ahaan meesha inii soo dhigay. ka daawada marka koowaad. haddaan inii sharxana waxay ka koobnaayeen qoyskiisa in kaga sheegaba 4 caruura iyo hooyo iyo adeerkii oo 2 aabbo uu yahay 2 adeer uu yahay. wiilka wax dili doono oo labada wiil walaalkiis dilay. wiilka labada wiil dilay aad maqasheen sababta uu dilayna waxay tahay walaalihiis waa uu caraysnaay, waa uu xanaaqsanaay. sababta uu xanaaqsanaana waxay tahay asiga waxay ahaayeen gabar, asiga iyo gabar dhalatay ayay awal ahaayeen. asiga iyo gabar dhalatay oo isku aabbaa ayay ahaayeen. isku hooyana way yihiin, isku aabe. waa gabadhii isku hooyadii isku aabba yihiin. aabbihii ayaa ka dhintay, hooyadiis ayaa aabbihii ka dhintay. asigoo ilmihii oo caruurtii oo agoon ah oo gabar yihiin iyo gabar dhalatay yihiin oo aabbood dhintay ayaa waxaa dumaalay adeerkood. fidnada waxay ka bilaabatay adeerkan marka. hooyadii waxaa dumaalay adeerkood marka aabbood dhintay. wiilkan wax dili doono iyo gabadhii la dhalatay ayagoo ah oo gabadha reerka u hartay gabadha hadda reerta ka hartay iyo asiga hooyadood waxaa dumaalay adeerkood marka aabbood dhintay. waxaa dhashay labadan wiil dilay oo wiilka dilay. waxay noqdeen 4 caruur ah oo isku hooya laakiin kala aabba ah. gabadhii wiila isku hooya, 2 wiilna waa isku hooyo, waa isku aabe. labadaana waa isku aabe, labadaana waa isku aabe, laakiin isku hooyo waa ayaga dhan. hal hooyo ayaa ka dhexeyso sida ilaan adeerkooda ayaa dumaalay. waxaa jirto marka adeerkan wax dumaalayo adeer wanaagsan ma ahan. wuxuu kufsaday gabar oo adeer u yahay, gabadhii oo adeerka u yahay oo la dhalatay wiilka. gabadhii naagtiisa ay dhashay, fahmaysaa, oo adeerkan oo u ahay ayuu kufsaday. gabadhii yareed markuu kufsaday ayaa waxaa qisadii maqashay naagtiisii markay maqashay booliska ayay ku dacweysay. booliskii markay ku dacweyso maxkamad laysla gaaray ayaa waxaa dhacday ninkii inuu maqlay in la dacweeyey. markaasuu naagtiisii dilay. haddana gabadhii wuu kufsaday, naagtiina wuu dilay. hooyo la-aan iyo walaashii oo kufsaday.
wiilkan waxa ku qasbay inuu labadan wiil dilo waxay tahay marka aabahood ayaa wuxuu sameeyey hooyadiina wuu dilay wiilka hooyadiina wuu dilay gabadhiina wuu ka kufsaday gabadhii la latay wuu kufsaday oo asiga adeerka uu ahay wiilkan wuu caraysnaa marka da'dii iyo caradii ayuu la weynaaday waxaa dhacday asagoo qabraysan oo caradii hayso in uu sabab dilo marka labadan wiil oo u aar asagoo ka fikiraayo aar inuu walaalihiis gacantiisa ku dilay qisadii aan inkaga boodini wiilkan marka hooyadii dilay waa la xiray odaygaan ka wadaa markii uu odayga maamada dumaale markii hooyadii uu dilay oo ceejo ku dilay booliskiyaa qabtay way xireen familkii iyo qaraabadii ayaa intay wadeen bay waxay geeyeen gaalkacyo waxaa ku dambeysay asina gaalkacyo isagoo ku dhintay wax dila lama yaqaano laakiin gaalkacyo isagoo ku dhintaa loogu dambeeyay waa odaygii gabadhan kufsaday maamadiina dilay waxaa dhacda marka labada wiil haddana culamada ahayd oo mushaakiinta ahayd maqasheen inuu asina gacantiisa ku dilay kadibna asagii markuu carar booliska asina dileen familkii dhammaay waxaa kasoo haray gabadhii keliya familkii dhan waxaa kasoo haray gabadhii keliya gabadhii oo adeerkii kufsaday bisaa kasoo harta hadda qisada xanuunkeeda sidaasay ahayd wiilkan waxaa ku qasbayna hooyadiisna waa la dilay walaashiisna waa la kufsaday asigoo arrinkii walaalihiis aysan fiicnayn inuu gacantiisa ku dilo oo waxaasna wax loo dilo aysan ahayn oo waalidkii asi ha caraysnaado laakiin walaalihiis inuu u dilo ma ahayn adeerkii hadduu mar dhintay walaalihiis inuu iska dilana ma ahayn wuxuu u dilayay aabahood macnaha ilmaha aabahood ayaa hooyadeena dil walaasheena kufsaday asina waa aabahoodna wuu yahay waa sax ilmahana waa u dhalay ayagaba laftigood hooyalaan u dhigay sababta waa isku wada hooyo ilmaha dhan kala aabbo waa mooy waa isku wada hooyo marka qisadii xanuunkeedii sidaasay ahayd dhibka meeshaasu ka bilowday in wiilkiisaas dhibka uu ka bilowday dhammaadkeediina ay noocaas noqotay hal gabarna ay kasoo hartay qisadaasna waxay ka dhacday saad maqasheenba gobol kamid a gobolada maraykanka ayay ka dhacday soomaaliyeen ahaayeen dadkaas dhibkaas oo dhan isku geysanayo xanuunka meeshaasu ka bilowday dhibka meeshaasu ku dhammaaday marka waxaan leenahay waxaan rabnay inaan maanta la wadaagno qisada meesha ka bilaabatay meesha ku dhamaatay marka waxaan leenahay muuqaalkan iyo muuqaalka xigo inta dib ka kulmi doono waxaan leenahay ha ka hilmaamin inaad nagu dhiirigeliso like-ta muuqaalkan aad share garayso si ay asxaabta kale u ogaadaan marka waxaan leenahay inoo kulan dambe waxay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu